Sadio Mane inaan garsoore awgiis garoonka ugu baxno waxay ahayd ceeb. Xidiga xulka qaranka Senegal Sadio Mane ayaa markii ugu horeysay ka hadlay go'aankii ay ciyaartooyda xulkiisa muddo kooban garoonka kaga baxeen intii ay socotay ciyaartii finaalka ee dhex martay Morocco iyo Senegal. Kadib markii rigoore muran weyn dhalisay loo dhigay Morocco, Mane oo ahaa ninkii ku qanciyay saaxiibadiisa inay dib ugu soo laabtaan ciyaarta ayaa sharaxay sababta uu u qaatay go'aankaas isagoo yiri: kubadda cagtu waa wax gaar ah oo caalamka oo dhan laga daawado. Markaa waxay ahayd inaan sabir wanaagsan ka bixino ciyaarta. Waxaan u maleynayaa inay waali noqon lahayd inaan ciyaartan dhameystiri weyno kaliya sababtoo ah garsoore ayaa rigoore dhigay. Taas waxay noqon lahayd doonashada ugu xun, gaar ahaan kubadda cagta Afrika. Waxaan ka doorbidayaa in la iga badiyo intii aan ogolaan lahaa in wax caynkaas ah ay ka dhacaan kubaddayada. Xidiga ayaa BBC Sport u sheegay inuu aad ugu xun yahay hakadkii ciyaarta ku yimid. Waxaan u maleynayaa inay tahay wax aad u xun. Ma ahan inay kubadda cagtu istaagto muddo 10 daqiiqo ah, laakiin maxaan samayn karnaa waa inaan aqbalnaa wixii aan sameynay. Laakiin waa wax wanaagsan inaan dib u soo laabanay oo aan ciyaarta sii wadnay wixii dhacayna way dhaceen. Go'aankii Mane ee ahaa inuu xulka dib ugu soo celiyay garoonka ayaa loo arkaa mid badbaadiyay sumcadda xulka Senegal iyo guud ahaan tartanka AFCON, maadaama markii dambe ay ku guuleysteen koobka kadib markii rigooradii laga qabtay Morocco, iyaguna ay goolka guusha dhaliyeen waqtigii dheeriga ahaa. Dhinaca kale, ma habboona inuu sidaas u dhaqmo. Kabtanka Barca oo garsooriyay kulankii Real Sociedad ku eedeeyay kibir iyo isla weyni. Kabtanka kooxda Barcelona Frenkie de Jong ayaa weerar afka ku qaaday garsoore Gil Manzano kadib guuldaradii 2-1 ahayd ee kooxdiisu kala kulantay Real Sociedad. De Jong ayaa muujiyay sida uu ugu xun yahay habdhaqanka garsooraha isagoo yiri: xitaa lama hadli kartid isaga. Ma fahmi karo arrintan, anigu waxaan ahay kabtanka waana la hadli karaa garsooraha, laakiin wuxuu kuu eegayaa sidii isagoo ka sareeya. Waa wax aad lagu xumaado, ma habboona inuu sidaas u dhaqmo. Xidiga reer Netherlands ayaa sidoo kale ka cawday kaar huruud ah oo la siiyay isagoo isku dayay inuu kala hadlo dib u dhaca ciyaarta. Waxaan u sheegay inuu isha ku hayo waqtiga sababtoo ah waxay ku qaadanaysay waqti dheer inay laadadka soo tuuraan. xitaa 10 ilbiriqsi ma dhaafin markii uu kaar siiyay. Waxaan u maleynayaa inay tahay waali, laakiin waa sida ay wax u jiraan. Markii la weydiiyay go'aankii offside-ka ee muranka dhaliyay ee Lamine Yamal, kaas oo noqday qodobka ugu weyn ee ciyaarta laga hadalhayo, De Jong wuxuu ku jawaabay: haddii ay offside tahay waa offside, ma jirto waddo kale. Anigu ma arkin, laakiin waxaana loo sheegay inaysan ahayn. Wax la mid ah ayaa halkan noogu dhacay sanadkii hore, laakiin ugu dambeyn waa sidaas. Ugu dambeyntii De Jong ayaa rumaysan in Barcelona ay u qalantay guushii bandhigii ay sameeyeen awgeed. Waxaan u maleynayaa inaan u qalinay inaan guuleysano. Waxaan helnay fursado badan, si wanaagsanna waan u ciyaarnay, laakiin ugu dambeyn kubadda cagtu waa inaad kubadda shabaqa geliso. Annaguna ma aanan samayn taas. Goolhayahooduna aad ayuu u wanaagsanaa. maalin wanaagsan saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa warbixintii koobneed ee aan ugu hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalka nala soo gaartay, ilaawin inaad muuqaalka like saarto, sidoo kalena sii share gareyso. haddii aad nagu cusubtaan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. mahadsanid.